kusoo dhawaada casharka imtixaanaha maanta waxaynu gelinaa addition of matrices haddaynu soo qaadana example matrix A waxay noola mid tahay intaan and matrix B waxay noola mid tahay intaan so haddaynu isku darno laba matrix matrix A iyo matrix B maxaa loo baahan yahay casharka hore waxaynu kusoo sharaxnay shuruudaha loo baahan yahay laba matrix marka isku daraysid for example matrix A hadda matrix A maxay noola mid tahay matrix A waxay noola mid tahay haddaynu sharaxno matrix A waxay noola mid tahay intaan haddaynu soo qaadano waxay noola mid tahay 4 2 5 6 so matrix A inta ay noola mid tahay matrix A iyo matrix B markaan isku darno shuruudihii maxaa kamid ah loo baahnaa shuruudihii waxaa kamid ahaa inay noqdaan same order yani matrix A iyo matrix B inay noqdaan same order haddaynu qorno matrix A orderkii haddaynu qorno matrix A orderkeeda marka maxay ka kooban tahay matrix A waxay ka kooban tahay 1 row 2 row waxay ka kooban tahay low row yani row waa line-ka differentiation so waxay kaloo ka kooban tahay column 1 column 2 column 3 waxay ka kooban tahay 3 column marka maxaa noo fudud inaan qorno orderkeeda waxaan oranaa m times n m to maxaan nidhi waa row m maxaan nidhi waa row n maxaan nidhi waa column so maxaan oranaa 2 times 3 ayaan oranaa haddaynu soo qaadano matrix B haddaynu soo qaadano ayadana matrix B 1 0 2 3 okay haddaynu soo qaadano yani waxaan rabnaa inuu qorno orderkeeda inaan qornayno baan doonana matrix B ayadana orderkeeda maxay ka kooban tahay line-kan laba row ay ka kooban tahay line-kan iyo line-kan waxaan oranaa row 1 row 2 iyo column 1 column 2 column 3 saddex column ay ka kooban tahay marka orderkeeda haddaynu qorano maxaan oranaa m times n orderkeeda maxaan oranaa m maxay ahayd waxa weeye row wey n-tuna column way marka waxaan oranaa halkan maxaa haysanaa 2 row maxaanu haysanaa 3 column waxa weeye line-kan verticalka line-kan column 2 maxaa weeye line-kan column 3 maxaa weeye line-kan wey waxaan oranaa times 3 marka matrix A and matrix B maxaa weeye waa same order marka waa isku dari karnaa sooma matrix A iyo matrix B maxaa weeye waa isku dari karnaa because sababtoo ah maxaa weeye waa same order wey same order wey marka yani same order waxay u yihiin waxa weeye 2 row iyo 3 column tana maxaa weeye 2 row iyo 3 column marka maxaa weeye waa same order wey marka maxaynu oranaa matrix A soo qaado labadoo markaan isku darno maxaa soo baxaya result cusub sooma waxaynu u qaadanaa letters C ayaynu qaadanaa C matrix waxay la mid tahay matrix A aan soo qaadano matrix A maxay noola mid tahay 4 waxaan rabnaa inaan si fudud aan u fahanno in u sharaxno casharkeena matrix A baan soo qaadanay waxaynu muujinaynaa calaamadda isku darka matrix B waxay noola mid tahay inta ay noola mid tahay iyaduna aan soo qaadano yani waxaan rabnaa si kasta uu qof u fahmi karo moogtahay si simple ayaa loo fahmi karo matrix B waan soo qaadanay matrix B qodobkooda aan soo sheegnay wuxuu ahaa inay same order noqdaan shardigooda waan ku helnay kan ugu muhiimsanna waa kan same order inay noqdeen hadda maxaynu niri haddii same order noqdeen waan isku darnaa isku darka cusub waxaynu u qaadanaynaa wax soo baxsay jawaab cusub sooma
marka la isku daro result cusub ayaa soo baxaya waxaan u qaadanay letter C ayaan u qaadanay marka maxaan oranaa halka marka marno C ayaa isku darnaa sababtoo ah halka marka fiirisid de qofkii aan aqoon u xusdayaa C soo daraya qaab C ah yani isku geeni sida uu fudud isku geyn karo waxa weeye qodobka labaad wuxuu ahaa elementska matrix A maxay leedahay elements matrix B maxay leedahay elements waxaan ka wadnaa 4 2 5 yani ayaan ka wadnaa matrix B sidoo kale weeye elementska waxa weeye waa hal eber laba saas ka matrix A hadda 4 hadaan soo qaadno 4 hadaan soo qaadno 4 halkee ay ooshaa يعني ماشي اوشو سيكو قرانيا افر waxa weeye positionka oosho waxa weeye afar dan example ahaan soo qaadano positionka oosho maxaa weeye waxaan oranaa positionka oosho waxa weeye waa row 1 iyo column 1 two positionka oosho maxaa weeye waa row 1 line-kan way line-ka ay kamid tahay waa row 1 iyo column 2 ayaa halka ku qoraya shan maxay ooshaa line koowaad ah row 1 iyo column 3 haddana hadda soo qaadano matrix B example ahaan soo qaadano row 1 xagee ooshaa row 1 maxay ooshaa 1 حكي أوشة وحوشة روان إيو column 1 أيان كوضح مركا حوشة روان إيو column 1 هذا إبر حكي أوشة إبر وحوشة روان إيو column 2 إيو أوشة لابا حكي أوشة روان لاين كان إيو كمت روان إيو column 3 matrix A aan soo noqo ayadana matrix A qaybtan row labaad ayaa galaya row labaad matrix 1 ka xagee oo la waxa row 2 ay oo la row ayaa la soo hormariyaa markaas maxaa la soo hormariyaa row ayaa la soo hormariyaa iyo column ay oosha saddex xagee oosha waxa oosha row 2 iyo column 2 ay oosha المنسلي حاجة أوشة وحى أوشة رو 2 رو أيال صوره مريا مركزية هي column 3 هي أوشة ماتريكس بي هدان أصلا نقوم أيضا حاجة أوشة تصدح وحى أوشة رو 2 هي column 3 رو 2 column 3 no column 1 sorry column 1 way بس column 1 أي أوشة sidoo kale halkee oosha row 2 iyo column 2 afar xagee oosha row 2 iyo column 3 ay oosha marka shardi labaad yani saan waxaan u qoranaa waxaan doonaynaa qof walba inuu si simple u fahmo inuu doonaynaa dadku fahmad maahan dadku isku fahmada kama wasna wax laga yaabaa qof mar hore inuu fahmayba marka additionka shardiga koowaad maxaa ahaa in same order noqdo shardi labaad maxaa weeye elementska aan isku darno inay noqdaan same order iyo same column yani same row iyo same column inay noqdaan hadda waxaan isku daranaa haddaan soo qaadano C waxayna la mid tahay hadda waxaan isku daranaa elementska isle ayaan isku daranaa same order yani same row iyo same column yani shardi labaad wuxuu ahaa same row iyo same column hada afar iyo hal maxay yihiin wa halkaan yani wankan hore waxa ka wada waa row ayaa laga wadaa hadaan halka ku muujiyo wankan hore kan hore waxa laga wadaa waa rowga meesha ka taalo hada row 1 ay oo shafo column kana waa kan dambe weeye column ayaa loo qaataa saa ayaa lagu gartaa markasta waxa horeeya rowga wax dambe column-ka sidoo ku sayna order-ka hadda kan waxa weeye row kana waxa weeye column saas ku loo
marka elementiska maxaan isku geynaynaa elementiska same row-ga leh iyo same column-ka hadda 4 yaa matrix B sutarma matrix A waxa ku jira 4 ayaa ku jira 4 ayaa ku jira oo ah 1 1 wadata sooma 1 1 wadata ayaa ku jira intaan si qurban qorno 4 maxay haystaa waa 1 row 1 column 4 ayaa ku daraya matrix B ayaa ku daraya yani kan corresponding wax weeye 1 ayaa la ah corresponding si kale ku si fudud corresponding 1 ayaa la ah marka maxaan oranaa ayadana maxaa weeye 1 row 1 column waa same order yani waa same position ay oolaan maxaa ku daraya 1 labo maxaa ku daraya ever sababtoo ah waa same row and same column ever ayaa ku daraya 5 maxaa ku daraya labo ayaa ku daraya because waa same row and same column positionka ay ka yihiin positionka oolaan ayaa same position waaye 1 maxaa ku daraya 3 ayaa ku daraya and 3 maxaa ku daraya 1 ayaa ku daraya minus 6 maxaa ku daraya 4 ayaa ku daraya 4 ayaa ku daraya marka maxaa isoo baxaya marka la isku daro waa 5 2 7 4 minus 6 marka lagu daro 4 minus 6 marka 4 lagu daro yani waxa soo baxaya waa minus 2 ayaa soo baxaya markaste numberka weyn ayaa calaamad israacinaysa dadku halka dad badan ayaa isku qalda basiga problem ka jira ayaa isku qalda halkaas numberka weyn ayaa calaamad israacinaysa marka maxaa isoo baxay result cusub ayaa isoo baxay markaan isku daray maxaa isoo baxay si result cusub shardiga saddexaad ahaa waxa weeye matrix A iyo matrix B in same order la noqdaan weeye matrixka cusub soo baxay hadda aynu qorno order of matrix A maxay ka tahay waa 1 row 2 row iyo column 2 iyo column 3 marka maxaynu haysanaa row waa line ka jifan weeye laba line waa 1 row iyo 2 row iyo 3 column waana ku beegnay marka maxaynu qornaa order ahaan aan qorno m and soma m2 waxa weeye waa row iyo column n-tan waxa weeye column marka waxaan oranaa 2 times 3 marka maxay la mid noqotay resultiga soo baxay same order maxay la mid noqotay hadda A ay la mid tahay iyo B ay la mid tahay resultiga soo baxay thank you aad ba mahadsantiin waxaan rajeynayaa casharkan dambe waa la socon doontaa